jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco ayaa munaasabad ballaaran oo qalin jabina waxay u samaysay dufcadii labaad ee ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadan lagu barto. Munaasabadan ay ku qalin jabinayaan ardaydani oo ka koobnaa 195 arday waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere, Marwa Faadimo Siciid oo ka tirsan xisbiga wadani, waalidiin iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaha jaamacadda Alfa faraceeda magaalada Burco iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadan oo munaasabada ugu horeyn ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda maanta qalin jabinaysa iyo culumta kala duwan ee jaamacadda Alfa ay diyaarisay. waxaa la aasaasay 4 sano ka hor iyadoo ku bilowday 3 galaas oo ka kooban 3 kuliyad iyo hal dhisme. maasha Allah maanta jaamacaddu waxay ku jirtaa in ka badan 3 dhismo koox waxaana bixisaa in ka badan 3 kuliyad. waxaana dhigtaa arday kor dhaafta 800 arday oo isugu jira arday dhigata masterta, digriga iyo diplomada saddexda. sidoo kale waxay xarun ka furtay sanadkan bishii labaad gobolka Sanaag ee Caynaba oo ah gobol aad u weyn oo baaxad leh horena aanay jaamacadu uga furnayn. jaamacaddu runtii uma aha jaamacad goobta ama dhaqaale raadinay laakiin waa jaamacad kor u qaada bulshada. waxay bixisaa deeqo waxbarasho kala duwan in ka badan 5,000 oo ay sanadkii ku baxaa scholarships ay siiso dadka danyarka ah iyo ardayda sidoo kale kaalmaha hore ka galay imtixaamada. jaamacaddu waxay samaysay shaqaaluhu gobolka waxaana ka shaqeeya in ka badan 100 qof oo isugu jira administration staff, teaching staff iyo supporting staff. gabagabadii ardayda qalin jabinaysa oo ka kooban 160 arday oo 190 arday oo isugu jira kuliyadaha lowga, DSka, Human Resource Accounting, ICT Lab iyo Midwifery. waxaan halkan ka cadaynayaa in sidii ii soo gudbiyey xafiiska diiwaangelinta jaamacaddu inay si xalaal ah u dhamaystirteen waxbarashadoodii maanta ay ka mid yihiin graduate waddanka isla markaana ay u diyaariyeen inay shaqeeyaan waddankooda wax ku qabtaan. maanta ardayda halkan qalin jabinaysa waxaan leeyahay waxa weeye halgan dheer ayaad soo marteen, halgankaas oo doonayseen inaad himiladiina gaadhaan. maanta ayay rumowday oo himiladiina aad gaadheen. waxaana ilaahay ka rajaynayaa inay noqoto tuumina dhala oo dalkooga iyo diintooda iyo dadkooga iyo waalidkooga maafacda. hase haatee idinka ayaa laydinka doonayaa inaad shaqo abuurtaan, inaad shaqada abuurataan ayaa idinka laydinka doonaya. inanka yar ee Maraykan jooga ama jooga Yurub jooga ama Australia jooga ee dalkiisa dhisay waa kuwa idinka idin la mid ah. gudoomiyaha xisbiga UCD Injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Marwa Faadimo Siciid oo ka tirsan xisbiga wadani oo munaasabada hadal ka soo jeediyay ayaa boogaadiyay ardayda maanta qalin jabinaysa. inagu dhextoodaadkaas waxaan ku guuldaraysanay inaynu iskuul farsamo aan yeelano. iyaga foofi lahaa 5,000 maanta soo baxa sanadkii haddaynu 5,000 soo saarayno gamcaha farsamada ah dadku uu shaqo u heli lahaa. laakiin si aan maalsheeyay qof kasta wuxuu doonayaa kursi iyo miis inuu fadhiisto. dhalinyarada qalin jabisay waxaa loo baahan yahay inaad u fakertaan dalkiina sida hore ugu marin lahaydeen ee kor ugu qaadi lahaydeen ee u anfaci lahaydeen naftiina iyo waalidiintiina iyo dalkiinaba u anfaci lahaydeen inaad u fakertaan baa loo baahan yahay. waxaan idin leeyahay hambalyo congratulations. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad noqotaan dhalinyaro dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfaca insha Allah bismillaahi kariim. dhankooda wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha shaqada iyo arrimaha bulshada horumarinta beeraha ayaa madasha hadal ka jeediyay waxaanay ardayda kula dardaarmeen in la xoojiyo wadaniyada. dalkeenu waxa adduunku isku raacay inuu yahay dalalka adduunka ugu hodansan. ma mudna inaynu ka marnaano oo aynu ka gaadsoonno. waxa la soo gaaray markaa waqtigii ay idinku soo saari lahaydeen. waxa la soo gaaray waqtigii aqoontiina barateen cilmi baarida ku samayn lahaydeen.
waalidiintii tacabka iyo juhdiga iyo adduunkaba gelisay inay suuro gasho hanka iyo himilada ay carruurtoodu leedahay habla iyo inamaba oo ay halkaas soo gaadhaan iyaga ayaan u mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda alfa mid guud iyo mid gobolba waxaan u mahad celinayaa macallimiintii runtii juhdiga iyo dadaalka badan geliyey ee enerjigu kaga baxay inay mutaan maanta inaynu u dabaaldegno oo u aqoonsanno aqoon-yahaniin jaamacadda ka qalinjabiyey xafladda qalinjabinta ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda alfa university burco waxaad halkaa ku arkaysaa golaha wasiirada iyo xisbiyada qaranku waxay u soo guureen ama u soo garab caraabeen inay nagala qayb galaan xafladda qalinjabinta maanta oo runtii ah maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaan u soo guurnay ama u soo garab caraabeen inaan idhaahdo hambaliyo 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 aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba idiin hambalyeynaya ardayda wiilasha iyo gabdhaha ee ka qalinjabinaysa jaamacadda alfa qaybta burco waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiila wasaaradda waxbarashada iyo sayniska inaan idiin soo xiro farxaddan maanta idinla wadaago gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 195 arday ee maanta ka qalinjabiyey jaamacadda alfa farceeda burco. axmed saleebaan carab axmed kaafi bulsha TV burco.